guddi dhalinyaro oo ka soo jeeda degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa isla markaana isxilqaamay ayaa maanta deeq lacageed soo gaarsiiyay ururka samafalka Haldoor. deeqdan lacageed oo ay ka qayb qaadanayaan dhismaha dugsiga farsamada gacanta ee ururka Haldoor dhismihiisa ka wado degmada Maxamed Mooge. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Yaxye Maxamed Xanaas, محمد فؤاد حسن، محمد عبد إبراهيم يا عبد الكريم حكماوي oo dhamaantood ku hadlayay magaca dhalinyaradaasi waxaana hadaladoodii kamid ahaa ujeedada maanta aan halkan u joognaa waxa weeyaan waxa halkan joognaa oo ah iskuulkii farsamada gacanta ee Maxamed Mooge dhismihiisa uu waday ururka Haldoor ayaan joognaa xaruntiisii dhismuhu ka socday. ujeedada maanta aan halkan u nimid waxa weeyaan inaanu annagoo dhalinyar متطوعين ونور هاينا لكن أشخاص ودليرة دجامة دجموين كمحمد هيبة محمد موجة ككوبان قدر العجاد أجا واحد دوني عن وريتشنو وعن كوريتشنو كوركا تقدر كالكا محمد موجة قدر خال عجتها waxay dhalinyaradu ugu tala galeen runtii waxa weeyaan inay kaga qayb qaataan dhismaha iskuulka iyo inay dhalinyarada kale ku dhiirigeliyaan inay ka qayb qaataan horumarka iyo mashaariicda ka socota degmooyinkooda dalkooda goboladooda iyo guud ahaan dalkaba inay si guud uga qayb qaataan. tanna waxay noqon doontaa insha Allah mid bilow weyn noqon doonta ma ahaan doonto meeshii koowaad aan ku darno waxay ahaan doontaa insha Allah mid bilow weyn markaan bilownay. ujeedada halkan u joogno haddaan hoos ugu yeedadego ugu horeyn intaanan u gelin bal nidaamkan maanta qadarka lacageed ee wareejinayno aan ku yara noqdo marka koowaad ka dhalinyar ahaan sidii aan u galay hawshan annagoo dhalinyar iskood isku xilqaamay tadawiciin magacaan lahayn yani iyo bulshada Soomaaliland guud ahaanba ka qayb qaatay abaaraha ka qayb qaatay marar horumar imikana u taagan sidii ay kolba waxay u arkaan inuu yahay hawl khayriye oo socda inay garab ku siiyaan cidda wada. ugu horeyn maanta koobaad ilaahay ma hadlay noo soo bixiyay wax hal mar aha fikir imikana ficilkeeda aan wadno mahadnaqa rabbi ka soo waxa sidoo kale mahadnaqaya dhalinyartii ka qayb qaatay dhamaantood oo ku dhaweyd soo dhameeyay dhalinyar oo degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge kala tirsanaa dhalinyar aqoonyahan oo soo qaatay oo qaarkood shaqeeyay qaarkoodna aan shaqeyn bay ahaayeen waxaan leeyahay aad baad ma sitay cid ka soo qayb qaadatay runtii waan ugu faraxsanahay hal mar iyo wax ka badanna diyaar baan u haynaa Haldoor ku kordhino wixii barag muruqayga iyo maankayga iyo ma garanaysaa lacagteedaba aad baad ma sitay qadarkuna runtii yaanan ilaabi waa qadar $1 oo runtii dhinac markaad ka eegtana dhalinyar $1 ku wareejisay oo iskood isku xilqaantay waa wax weyn runtii oo aan yarayn wuxuu jiro dhinac markaad ka eegtana markay doorka iyo waxay dhalinyartu goyn kartaa aad ka eegto runtii wuxuu noqon karayaa wax lagu bilaabo laakiinse marka dambe iyo marka saddexaadba aanu laba ujeedo u wareejin ujeedada koowaad inaanu dhammaan in bulshada noocyada kala duwan ka qayb qaataan iyo in dhammaanka labaad uu yahay Haldoor in lagu garab galo ayna u arkin wax ku kaliyeystay kaligood. marka inta kaga imaado ujeedada cidda lagu wareejinayo cidda wareejinaysa waxa la wareejinayo Yaxye Maxamed Faad baa hore u sheegay aan dhowr qodob oo ka yara duwan u baataabanay runtii waxa weeyaan ujeedadii ugu muhiimsaneed ay dhalinyarta aadka u koobay ay iyagu isku xilqaameen waxa kamid ah waxay markii aanu garowsanay ahmiyadda uu iskuulka bulshada u leeyahay waxay Soomaaliland maanta farsamada gacanta iyo dadka xirfadaha aad bay ugu yaryihiin dadku waxay doonayaan inay dhammaan jaamacadkooda baxaan deetana jaamacadii laga wada baxo xafiis laga wada shaqeeyo. that's why waxa weeyaan maanta Soomaaliland marka la joogo percentage ama shaqo la'aanta jirta waxay tahay 70% meelaha caalamka ugu badan weyn waxaan oo kale oo meeshii ka jira marka iskuul noocan oo dad xirfad la soo saaray oo dad shaqadii helaya soo saaray oo noloshoodii ka waxay muhiimadda noocaas markaan garowsanay arrimaha bulshada laga qayb qaato ama waxbarasho noqoto iskuulka ka mid yahay ama wadooyinka noqoto ama caafimaadka ama saldhigyadii booliska noqotay wax weeyaan waa wax aad u muhiim kadib markaan inta garowsanay in laga qayb qaato way iskuulka ku yaala deegaanada marka haddii aan anagu ka qayb qaadan wax weeyaan dadkii kalena kama qayb qaadanayaan
marka ujeedada rasmiga ahayd inaan waxaweyaan lacagtan maanta ku wareejinay intan anagoo urur group yaroo aad u tiro koobnaanahay intaas ahayd farsamada gacanta waxay ka mid tahay aqoonta dunida iyo dalkeennaba lagaga shaqeeyo uguna wanaagsan waana wax muhiim ah oo wanaagsan in la dhiirigeliyana mudan mar walbana way dhiirigelinaynaa anigoo mahadda badan aan naqayn waxaan idiin sheegi doonaa 4 kelmadood oo yaryar baan idiin odhan doonaa oo maanso yar oo waxbarashada ka hadlaysa ka mid ah waxay yara tilmaamayaan kelmadahaasi adduunka meel walba haddaad marto oo aanad aqoon lahayn in aakhirka marka xoogaaga la dhamaysto inta lagu tuuro walibana carruurtaaduna ay adooma iska ahaan doonto marka maanso yar inta yar ka mid ah waxa uu xidhi cirka tiigsa meel sare dhulka teedsan sii raac wadda 10,000 oo baac weligaaba soo taab ama qaba talyaaniga ama ruushka talax tagay la sameeyo tawaangida hubka taranta loo rido kol hadaana taagtaa weligaa tacliin baran turuqaaga jiridii horta waa lagu talin kolka taag daraysana tuurid baad u dhowday aqligaaga talantali maantana tusmada xidho istabaabushay aadi uu ku yaanu ka tagin ha tabanin garaadka hana tabanin waayaha ifka talagal kaga soco la talaabsa qeyrka waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee ururka samafalkii haldoor mudane deeq cismaan iyo iskuduwaha barnaamijyada ee ururkaasi mudane cabdiraxmaan dube waxaana yidhaahdeen iskale guud ahaan iyo gebi ahaanba marlabaadka waxaan si weyn ugu mahad celinayaa dhalinyartan isxilqaatay ee degmooyinka maxamuud haybe iyo maxamed mooge waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro جزاكم الله خير الجزاء runtii waa arin guul ah waa farxad runtii waxay noo tahay dhiirigelin iyo dardargelin hawlaha ah runtii qadarkaasi ma yara marka loo eego jeebka dhalinyarada iyo groupka aan urur ahayn hay'ad ahayn cid ahayn iska soo ururiyay runtii waxaan idinku hambalyeeynaa niyadda wanaagsan ee aad la timaadeen ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri wa ala niyatikum turzaquun waxaan idinku arsaaqaynaa waxaan niyadiina ku jirta waxaan ogsoonahay oo yaqiinsanahay hadaad hayn lahaydeen in inta ka badan ama hayn inta ka badan inaydaan hagrateen dadkana ninka intiisa yar ku siiya ayuunba intiisa badanna ku siiya runtii aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa haddii aanu nahay ururka horumarinta bulshada ee haldoor mashruucan farsamada gacantu gabi ahaanba wuxuu muhiimad weyn ugu fadhiyaa Somaliland gaar ahaan wuxuu muhiimad weyn ugu sii fadhiyaa meesha uu ku yaalo marka dhammaan dhalinyarta Somaliland guud ahaan iyo gabi ahaanba ka qayb qaadashadeedu runtii waa mid aad iyo aad u muhiim ah bilowga hawshan iyo abaabulkeeda runtii waqti adag ayay u soo mareen dhalinyar iyaguna sideena soo kale isku abaabulay oo hayntooda iyo jeebkooduba uu aad iyo aad u kooban yahay wuxuu baanay taasi ku dhalatay dadaal iyo juhdi iyo u dhabar adayg qarfihii iyo hawshii adkeyd ee dhalinyarta hawshan bilowday ee haldoor ay u soo mareen runtii ilaahay uu baanay ku tawagasheen ilaahayna qofka tala saarta ma haleeyo ilaahay wuxuu quraankiisa ku yiri fayda asamtum fatawakkalu ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin markaad arrin goosataan ee tala qaadataan ilaahay tala saarta ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa tala saarta runtii waxay ahayd arrin tala saarashada alle iyo garabka alle aan ku gaadhnay insha Allah biidmillah hadda waxa socda wajigiisii labaad wajinka tala saarayo waxa hadhay wajiga saddexaad oo qalabaynta ay la socoto waxaan runtii u mahadnaqaynaa dhammaan bulshooyinka Somaliland ee ka qayb qaadatay kuwii jeeb kaga qayb qaatay gacan kaga qayb qaatay iyo kuwa kaga qayb qaatay niyadda iyo dhiirigelinta waayo kelmadda iyo dhiirigelinta iyo kelmadda wanaagsani marbay ka qiimo badan tahay qiimaha mashruucaasi uu ku kacay marbay kaaga wanaagsan tahay kelmad uu qof wanaagsan uu ku yiraahdo marka maxay haytooy insha Allah biidmillah dhalinyarta Somaliland haddii ay isku tagaan oo ay gacmaha isku qabsadaan waxay samaysan karaan mashaariic aad u waaweyn kuwan qaar lamida iyo kuwa kalaba waxaan u baahanahay in aynu aqligeena iyo xuduudeena iyo cuudkeena aynu midayno si aynu u gaadhno hadafka iyo himilooyinka aynu leenahay waxaan guubaabinayaa dhalinyarta Somaliland in aanay iyagu wadankooda qariib ku noqonin wadankooda aanay ku noqonin soo galeeytay haw hanqal taagina wadan uu samaystay inaan yaro qeyrkiini
yurub iyo ameerika inan yaroo qayrkiina ayaa samaystay maxaa inaga inoo diiday in aynu samaysano waddankeenna inagoon hay-ad sugin inagoon dawlad sugin inagoon cid kala sugin in aynu gacmaha intaynu isku qabsanno aynu mashaariica kuwaasoo iyo kuwa kasii waaweynba aynu u samaysano si tabaruca si kal iyo laaba oo kolba degmo kolba meel kolba magaalo iyo kolba gobol aynu ka samaysano waxaynu gaari karnaa runtii horumar aad iyo aad u weyn oo ay gaadheen kuwa imaka isku haysta inay super power yihiin waynu dhaafi karnaa waayo inagu markasta waxaynu haysanaa xarigga ilaahay waxaynu nahay dad islaama oo qadarka iyo arrimaha ilaahay ku kalsoon aad iyo aad baan runtii dhalinyartan uga mahadnaqaya wax weyn bay ay taraysaa marka laga tago inay mashruuca gelinayso waxa iyadana meesha ku jirta niyadda iyo dhiirigelinta iyo dardargelinta hawshan aan u arkayno in ay jiraan dhalinyar nala dareen ah dhalinyar sida aan wax u arkayno noola arkaysa dhalinyar nala qaybsanaysa waxyaabaha horumarinta bulshadeena ay ku taamayso inay gaadho runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaad ka mid noqoteen bahda haldoor bahda higsiga ugu jirta in laga baxo jahliga in laga baxo gaajada in laga baxo yani in qofku uu qof ku tiirsanaado in ay dhalinyartu ay gaadhaan ama ay noqdaan kuwa ugu cadcad uguna wanaagsan dunidan aynu ku noolahay runtii qaybaad ka noqoteen waanuna idinku mahadnaqaynaa waxaan idin leenahay halkaad ka soo saarteen iyo dadaalkii aad geliseenba ilaahay ha idinka jasaa'isiiyo runtii qofka wax bixiya iyo qofka aan jeebka wax ku hayn ee laakiin niyeeya inuu maanta hadduu wax hayn lahaa uu bixin lahaa waa isku ajar inta soo niyeysay inta maalkooda la baxday inta waqtiga gelisay intaba waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro maalin maanta ay ka adag tahay oo cadceedu korkaaga ay timi dhididkaaguna uu ku qooyey ayay wax badan idinka tari doontaa waa maalinta yoomal qiyaame ee qofku saacidaya walaal waalid iyo hooyo ku saacidaysa midna aanay jirin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa inagu kulansiiyey barkulankan maanta aynu joogno oo ah dugsiga farsamada gacanta aan dhisaynay tan ururka haldoor runtii ururka haldoor iyo magaranaysaa muhiimadda iyo magaranaysaa hadafkiisa iyo ujeedooyinkiisa iyo siduu aasaasan yahay waxaa faallo badan ka bixiyey agaasima ururka haldoor Cismaan Daahir runtii waxaa muhiima ururka haldoor inuu yahay urur la dareena dhalinyarada urur ka turjumaya baahida dhalinyarada urur og oo ogsoon magaranaysaa duruufaha ku gadaama dhalinyarada waddankeena runtii waxa anagu intii aanu hawlahan ku jirnay duruufo badan iyo caqabado badan ayaa naga hor yimiday laakiin dhabar adayg iyo samir baanu kaga gudubnay runtii waxa aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa inamada aan magac lahayn ee midaysan magaranaysaa gartay aqoontooda iyo garashadooda iyo dareenkooda iyo magaranaysaa damqashada iyo la diir ahaanta deegaanka ay siisay inay magaranaysaa ka qayb qaataan dugsiga farsamada gacanta runtii waxaan leeyahay himiladiina iyo hadafkiina iyo midaysnaantiina halkaa ka sii wada rajeeya inaad magaranaysaa guulayntan ka badan hoyn doontaan malaa way idinla yar tahayna maanta $1 bixisaan laakiin waxaa ogaataa maanta hadda $1 wax badan kalena ku dhiiri doontaan insha allahu tacaala annaguba hami baanu ku bilownay qaawan noloshiiday insha allah waana arkaysaan halkan maanta wax marinayno taasina waxay ahayd inaan ummaddeeda ku tashanay oo dadkeeda ku tashanay oo sheebkeeda ku tashanay oo muruqeena ku tashanay oo maskaxdeena ku tashanay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan inta ninka weyn isugu iman doono bidnillaahi kariim ha ka daalina horumarka iyo waxbixinta insha allahu tacaala waxaan filayaa inay tan iyo tukabada isugu iman doono garoomo kan ka waaweyn aad ku ciyaari doontaan insha allah waxbixinteeda iyo magaranaysa waxqabashadeeda aad muujin doontaan waxaana marka dhinac kale laga eegana waxa aakhiradiina u sii horumarsateen oo idinka tari doonto magaranaysaa ka badbaadinta cadaabaadka iyo magaranaysaa inkaaraadka iyo aafooyinka jira adduunka insha allahu tacaala waxaan leeyahay alla garabkiina ha galo wanaagana ilaahay si waadaxa idiin sii tuso insha allahu tacaala khayrkana insha allah ku sii dhiirada halkaa ka sii wada allah idinka dhigo marka aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaa haddaan nahay xubnaha ururka haldoor malaha mahadnaqii iyo salaantiiba waxa dhameeyey agaasimaha
insha Allah intaas laga bixiyo. Assalaamu calaykum. ugu dambeyntii yaxye maxamed xanaas ayaa deeqdan lacageed oo dhammeed $1,000 ku wareejiyey agaasimaha guud ee ururkaasi deeq cismaan. lacageed ee halkan maanta aanu ku wareejinayno ururka haldoor waxa uu dhan yahay $1,000 oo doolarka Mareykanka ah marka naga guddoon agaasime adigoo ka wakiila dhammaan bahda haldoor. bismillaah anoo ku hadlayaa magaca ururka haldoor horumarinta bulshada ee haldoor dhalinyarta isxilqaantay lagu wareejisay maanta lacagta $1,000 waanu idinka guddoonnay waa idinka guddoon waanad ku mahadsantihiin sidii aad u garateen in aad mashruucan farsamada gacanta kaga qayb qaadataan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. maxamed midhiq, shabakadda wararka ee Togera.